السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة عوان كذا waxaa la yiraahdaa ha ku raaxaysanin dadka kale dhibkooda. Arday iyo sheekhiisa isa soo raacay ayagoo dhex wareegaya meel beer ah ayay waxay arkeen kabo meel yaala oo aad u jarjaran way iska dhaadhiciyeen qof liita iskale dabcan uu iska lahaa nin faqiir ah beerta ka shaqeynaya ayaa kabaha lahaa markaasuu ardaygii sheekha wuxuu ku yiri sheekho ka waran hadii kabaha intaan qarino aan fiirna ninka markuu soo noqdo sida uu dhaqmo xaaladda qaabku u dhaqmayo markaasuu sheekhu wuxuu ku yiri maya sida ha sameeynin ka waran bii adiga in xoogaa haysta tahay hadii labada kabood lacag u dhaxgelisid aan u dhuumano markuu soo noqdana bal qaabku u dhaqmayo aan fiirino wiilkii wuxuu la dhacay fikradii wuxuu yiri waayahay lacag buu qaaday labada kabood buu dhaxgeliyay ninkii faqiirka ahaa shaqadii markuu ka soo rawaxay uu yimid kabti cagta duu galiyaba lacag baa ka soo raacday waa ku foorarsaday tii kale cagta galiyay mase sidoo kale lacag ku jirta indhuhu marmartay bal inuu riyoonayo wuxuu inay lacag yihiin wuxuu hubsaday inay wuxuu lacag yihiin markaasuu lacagtii jeebka gashtay kadibna oohin ayuu bilaabay iyo inuu gacmaha kor u taagto markaasuu wuxuu yiri rabbiyow waad mahadsantahay waxaad ogtahay in xaaskayga ay xanuunsan tahay caruurtaydina ay gaajaysan yihiin oo aanan u awoodin xabad rootiga inaan u gado aad baad rabbiyow u mahadsantahay kadibna ducadiisii iyo oohintiisii uu sii watay markaas ayuu ardaygii wuxuu sheekhiisa ku yiri wallaahi waxaad i bartay cashar aad iyo aad u weyn ayaad i bartay qisada marka waxa weeye sideedaba horumarka dadka kale ay horumarayaan farxadda dadka kale inay farxad ku noqoto ayaa la rabaa laakiin inaad murgintooda iyo inaad murugtooda ka ganacsatid inaadan marnaba isku dayin mahadsanidin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.